waxa uu laba goor ka baxsaday xabsi ahaa midaan laga baxsan jirin ammaankiisa iyo ilaaladiisa darteed wuxuuna uga baxsaday si cajiib ah oo la moodo filin Hollywood ah isagoo isticmaalay qaraxyo iyo diyaarado helikobtara wuxuuna ahaa gaangister tuuga oo dhacay boqolaal ganacsi iyo sodomeeye bangi haddaba siduu u baxsaday yaase ka caawiyay baxsashada muddo intee leeg bay qaadatay in la soo qabto su'aalahaas iyo kuwa kale ayaynu jawaab ugu dooni doonaa xalqadeenan xogdoon oo ku saabsan baxsashadii xabsiga cajiibka ahayd ee gaangisterkii caanka ahaa ee Ridwan Fayid. This is the story about the craziest prison escapes of all time and the man behind it. وسنة 2016 waana xabsiga dhexe ee koonfurta magaalada Paris oo ahaa xabsi weyne ammaankiisa iyo ilaaladiisa ay adkayd ahaana kan ugu weyn uguna casrisan xabsiyada wadanka Faransiiska kaasoo lahaa boqolaal ilaalo ayna ku hareereysnaayeen shabaqyo iyo gidaar aan laga dhici karin iyo sidoo kale shabaq aan diyaaraduhu ku tagi karin oo ku dadnaa gabi ahaanba dhismaha xabsiga inta waxa uu dheeraa snipers diyaar ku ahaa oo si guud la socda dhaqdhaqaaqa iyo ilaalada xabsiga gudihiisana qol gaar ah oo kiisi yahay 207 waxa ku jiray maxbuus sugayay in laga saaro meesha subaxa si uu u tago qolka booqashada oo uu ku lahaa subaxa ballan sida la sheegana maxbuuskaasi wuxuu ahaa midka uu ilaalada badan maxaabiista ku jirta xabsiga iyo sidoo kale gabi ahaanba wadanka maadaama uu ahaa tuug halisa iyo gaangister ka dambeeyay dhicitaano kala duwan oo lagu dhacay bangiyo iyo goobo ganacsi kuwaasoo mid ka mid ah ay ku dhimatay ciidan wuxuuna ahaa maxbuuskaasi mid dhowr jeer ka baxsaday ciidanka kolkii ay qabtay is yiraahdeen sidoo kale wuxuu geystay baxsiyo xabsi oo kala duwan wuxuuna ahaa halis iyo khatar il gaara lagula socday walow uu ahaa maxbuus dhaqan wanaagsan kuna adadkayn ciidanka cagsiga waxa uu ahaa inay jecel yihiin oo degan waxayse isweydiinayeen talo baxsi kale ayuu qorsheynayaa mise waxa uu ku xasilay xabsiga magaciisuna waxa uu ahaa Ridwan Fayid waxa uuna ahaa tuug iyo gaangister caan ka ahaa wadanka Faransiiska waxaana inta u raacday inuu ahaa gaangister noloshiisu ay ku burwamatay xaditaan yaraantiisii kaasoo ay waalidiintii ahaayeen muhaajiriin Algeerian ah ayna si joogto ah wiilkooda yar u barbaarin jireen isaga iyo 9 ciyaar oo walaalo ahaa ama la dhashay oo sida la sheegay aabihii waxa uu ahaa shaqaale warshadeed hooyadiina waxay ahayd nadiifiso Ridwanna waxa uu yaraantiisa ku bilowday xatooyo iyo tuuganimo oo sida la sheegay isaga iyo walaalkiisa ka weyn baa si wada jira waxa jiray alaabaha fudfudud taasoo keentay in kolka ay waalidiintiisa ogaadeen ay garaacaan si ay u edbiyaan wiilkooda yar Ridwan yaraantiisina waxa uu aad u jeclaa daawashada aflaamta gaar ahaan kuwa gaangistarada iyo dhicitaanada si joogto ah buuna u daawan jiray taasoo keentay inuu xifdiyo filimaanta qaarkood iskuna dayo inuu sameeyo waxa uu ka daawado filimaanta markii uu qaangaarayna waxa uu sii watay dhicitaanadiisii isagoo xal jiray qalabada tiknoolajiyada sida TV-yada iyo wixii la midka ah kuwaasoo kolka uu eebiyo lacagtaas uu ku baashaali jiray marka ay xadaan sida la sheegana kolkii uu 18 jirsaday waxa uu geystay dhicitaankiisii bangi ee ugu horeeyay kadib kolkii shaqaalaha bangiga uu qabtay qori una sheegay hadal filim uu soo daawaday oo ahaa hanjabaad kolkii uu dhaca geystayna waxa uu dib ugu laabtay sida uu sheegay iskuulkiisii oo uu xilliga ku lahaa imtixaan cid qabata ama wax u sheegtaana ma jirin waayo aabihii waxa uu ku laabtay Algeria hooyadiina waxay la tacaalaysay xaalad caafimaad oo dhiig la'aan ah ama leukemia dhicitaanadiisina maalin ka dambeeyay oo sii badanayeen waxayna u ekaayeen inuu jirayo aflaam ama uu practice kareynayo waxa uu soo daawaday taasoo sida la sheegay sanadkii 1997 bishii July 3 keentay inuu isiraagaysa dhicitaan gawaadhida lacagta bangiyada lagu qaado inuu xado isagoo ku dayanaya sameynayana sida filim uu jeclaa oo la oran jiray Heat oo Hollywood ahaay uu sameeyay taasoo keentay in fiidadka kamid ah isagoo oo jooga koonaha magaalada uu arkay gaarigii uu dhici lahaa taasoo keentay inuu gaarigii baacsado ama ariyado jiidsiyana gaarigii uu watay mise halka dambe waxa kaga yimi gaari waxayna hareereeyeen gabi ahaanba gaarigii iyo saddexdii ilaalada ahaa waxaana kasoo degay gawaadhidii 5 nin oo maaskiya xiran oo ku hubaysnaa AK-47 oo markiiba gaarigii hareereeyay furayna waxaabad moodaa filinkii oo dhaba markiibana ilaaladii saddexda ahayd iyo darawalkiibay ku qabteen hub Ridwan iyo asxaabtiisina waxa u dhaqaaqeen inay xaalufiyaan gaariga oo kala degaan lacagta saarnayd oo ahayd mid aad u fara badan taasoo ay ku qaadatay in muddo ah inay ku guraan gaarigii ay wateen oo ay ku wareejiyaan inta ay waday wareejinta lacagta oo fara badan darteed waxa ugu dul yimina ciidankii iyaga oo dhicitaankii weeda taasoo keentay inay
inay isla saasayn ka dhaxdhacdo meeshii taasoo keentay inay rasaasi garabka kaga dhacdo ninkii Ridwaan oo ku dhaawacmo bartaas taasoo keentay in muddo kadib saxaabadayntii uu ku dhiigbaxa meeshii kana baxsadaan meesha sidaana waxay ku dhaceen gaadhigii lacagta waxaana qobanaa meesha dhiiga ninkii dhaawacmay Ridwaan oo u sahlay inay helaan ciidanku DNA-da Ridwaan waxayna ciidanka kolka u dhaqaaqeen soo xiritaanka ninka maadaama ay heleen cadaymaha taasoo noqon doonta mid aan fududayn qaadana doonto in muddo ah intaanan u gudbin soo qabashadiisana haddii aad ka heshay xalqadan fadlan like saar subscribe-na dheh kanalka kuna soo dhawaada qaybta xigta sheekada ee ah sidii loo soo qabtay loona soo xiray Ridwaan Fa'iid kolkii ay dhicitaanka geysteen ee ay ka baxsadeen meeshii waxa uu ka baxay dalkii Faransiiska waxaana in muddo ku noolaa dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka Switzerland taasoo in muddo ay ku qaadatay ciidanka oo ay ku daba jireen soo qabashadiisa maalmaha ka mid ah isagoo raacaya tareen u socday dalka Faransiiska isagoo markaa ku sugnaa dalka Jarmalka ayay ciidankii qabteen xidheena kolkii ay xidheen tareenka ka dejiyeen buuna hal mar cagaha wax ka dayay oo ka baxsaday ciidankii isagoo ku dhaxdhacay wadada tareenka kana baxsaday meesha nasiibunaan kolkii ka baxay wadada tareenka waxa soo maray meeshii tareenka la qariyay isaga iyo ciidankii taasoo keentay inuu ka dhunto meesha kana baxsado isagoo ka booday gidaar keenay inuu ka dhaawacmo lugta kolkii uu ka booday gidaarka isagoo dhutinaya buuna galay hotel si uu ugu dhunto ciidanka isagoo helay qol furan oo isku qariyay kolka sariir hoosteed maadaama xilliga laga waday qolalka nadiifin oo ay furnaayeen kuna jireen shaqaaluhu xilliga taasoo kolka markii ay ka dhamaadeen shaqaalihii uu ka soo baxay si uu u sameeyo wicitaan ulana hadlo qof nasiib xumo sida taleefan ma haysan sidoo kale muu wadan lacag ku samayn karo wicitaan taleefan taasoo keentay markaa inuu toos u soo abaaro receptionkii hotelka isagoo kolka weydiiyay inay lacag u sarrifto isagoo rabo markaa inuu khiyaamayo kana dhacana lacagtaas sirkaas uu wicitaan ugu sameeyo ayuu ku jeedsaday eegayna sawiraan ku sawirnaa gadaasheeda kolkii ay sii jeedsatayna isagoo gacmihiisa ku xidhan yihiin katiinadii buu aayar xaday lacagtii kana baxay hotelkii kolkaas buuna u abaaray toos taleefanada gidaarada oo ku yaalay dhismaha hotelka wuxuuna isku dayay kolkaa inuu sameeyo wicitaan isagoo isticmaalaya lacagtii uu soo xaday nasiib xumo se lagama qaban taleefankii isagoo markaa dhuuntay fuulayna saqafkii dhismaha hotelka si uu u yara sugo in muddo ah inta uu mar kale ka wacayo saacad kadibna kolkii uu sahnaa saqafka hotelka waxa uu soo dadagay dhulka si uu mar kale u waco qofkii uu wacayay isagoo kolkaa dareemay jabaq kolkii uu ku jeedsaday dhabarkiisa uu arkay 20 askari oo hubaysan oo rabo inay xidhaan halkaas bayna ku xidheen markaa kuna dhigeen xabsigii waddanka Jarmalka maalin kadib bayna ciidankii geeyeen dhakhtar si lugtii ka dhaawacantay kolkii uu baxsanay u daweeyaan maadaama uu ka cabanayay kana sheeganayay xanuun fara badan oo waxa ay ka ahayd jiliin kolkii ay dhakhtarka geeyeen buuna ciidankii mid ka mid ah ka xoogay hubkiisii ama baaskooladiisii halka kii labaadna uu ku dhuftay suxul maadaama uu tababarna waxna ka yaqaan isdifaaca nafta isagoo markaa ka qaatay hubkiisna kana baxsaday meeshii mar kale 3 biloodna kadib maalinkii uu ciidanka kaga baxsay dhakhtarka baa mar saddexaad ay soo qabteen ciidankii una taxaabeen xabsiga waxaana lagu xukumay 18 sano oo xabsi ah oo ah dhicitaanadii iyo baxsiyadii labada ahaa ee uu sameeyay taasoo keentay in 9 sano oo kamid oo ku soo laaca xabsi ugu dambeynna keentay in la cafiyo dhaqan wanaagiisa darteed taasoo keentay kolkaa in noloshiisii dib ugu laabto waxa uuna ka qoray noloshiisii buug uu kaga warramayo waayihii iyo wacdarihii uu soo maray isagoo kolkaa guursaday helayna shaqo caadi ah noloshiisina wax ka bedelay isagoo noqday kolkaa caan buuggiisii iyo xatooyooyinkiisii laga sameeyay dokumentariyo wuxuuna ka soo muuqan jiray si joogto ah TV-yada iyo idaacadaha kala duwan waxayse dadku aan ogeyn in nolosha nolol kale ku hoos wado been ahayd iyo masraxiyad uu hoosta ka waday tuuganimadiisii iyadoo aan ogeyn oo la isleeyahay noloshiisii hore ma dib ugu laaban maayo isagoo ku jira waraysi maalin buuna la weydiiyay dib ugu laaban doontaa noloshaadii gaangistarnimada iyo tuuganimada ahayd oo uu ku jawaabay maya balse waxa ayna ogeyn saxafiyiintaas iyo shacabkuba inuu dib ugu laabtayba mar hore iyo inuu geysan doono ficil gilgili doono gebi ahaanba dalka Faransiiska. But in 2010, his team botched an armed robbery and killed a policewoman Aurélie Fouquet. waa subax bisha May tahay 20 waana sanadkii 2010 waana koonfur bari magaalada Paris oo subaxa laba ciidan ah ay ku jireen kormeer iyagoo hal mar labada ciidan ay ku war heleen wicitaan u sheegay in dhicitaan iyo baxsi laga geystay meel aan ka fogeyn laguna wargeliyay bal inay soo hubsadaan bacsadaan dadka baxsiga ku jira iyagoo kolka soo dhaqay dhinacii loo amray balse ay soo hubiyaan xaaladda iyagoo oo aan ogeyn waxa dhici doona in ragga baxsanaya ay waa Ridwaan iyo xer kale oo tuuga
ah oo ay saaxiib ahaayeen oo burcad ah oo rabay inay dhicitaan u geystaan gawaadhida lacagta bangiyada lagu qaado, taasoo kolkay islahaayeen dhaca ka hor ciidankii ay isbaaro ku qabteen kuna baadha is yidhaahdeen. Kolkaas bayna ka baxsadeen ciidankii oo sababta ay u baxsanayaan waxa ay ahayd taa, waxaana baxsanayay ciidanka. Labadan askarina waxay qayb ka noqon doonaan ariyashada iyo baacsiga tuugta, kuwaasoo kolkii ay baxsiga ku jireen gaadhigii ay watay shil galay, taasoo keentay inay gaadhigii ka degaan si ay u helaan gaadhi kale oo ay raacaan oo ay ku baxsadaan, taasoo keentay inay kolkaa la kulmaan labadii ciidan ee la soo diray ee dhalinyarta ahaa oo kolkii ay isha ku dhufteen ay dhex martay isxaabadayn iyo israsaasayn, taasoo keentay in 16 rasaasood ay ku dhacaan muraayadii gaadhigii ciidanka, keentana inay meesha ku dhaawacanto gabadhii ciidanka ahayd oo kolkii ay tugtu ka baxsatay meeshii loola cararay dhakhtarka kuna nafweyday halkaa. haweeneydaas oo ahayd 26 jir lagu magacaabi jiray Fukeya, taasoo ay geeridii gabadhaasi noqotay tu argagax ku keentay gebi ahaanba wadankii Faransiiska iyo shacabkiisii, oo keentay kolkaa in loo sameeyo aas qaran ayna ka soo qayb galaan kumanaan qof oo tacsideedii qayb ka noqday oo uu ka mid ahaa madaxweynihii dalka ee xilliga oo ka jeediyay aaskeygii khudbad uu ku sheegay inuu soo qaban doono cidda ka dambeysay dilka gabadha ciidanka ah sida u dhaqsaha badan ee suurtagalka ah. halka cagsiga ninkii Ridwaan isla ka sii watay noloshiisii beenta ahayd isagoo ka soo muuqday TV-yada dalka isagoo ka warramaya dilkii gabadha, maadaama uu ahaa khabiir wax badan ka og tuugnimada caynka ah iyo qaabka u dhacay dilka gabadhaasi. kolkii ciidankuna ay baadheen dilkii iyo weerarkii, waxay heleen cadeymo fara badan oo sheegaya in isagu ka dambeeyay dilka, balse waa uu dafiray oo waxa uu keenay makhraatiyaal beena, waayo cadayn dhaba laguma hayn oo lagu soo xiri karo laguna xukumi karo, ilaa ciidanku maalinkii dambe ay ka heleen muuqaal ay duubtay kaamiradaha amnigu oo muujinaya in Ridwaan uu ku jiray gaadhigii la rabay in lagu geysto dhicitaanka ee cadaanka ahaa, walow aanu joogin goobta dilku ka dhacay xilliga. cadaymaha la helaysa waxay sheegayeen inuu dilka ka dambeeyay, taasoo kolkii la ogaaday uu baxsaday qaadatay in sanadan uu ku jiro baxsi iyo dhuumasho, ugu dambeynna keentay in ciidankii soo xidhaan Ridwaan lana dhiga xabsiga laguna xukumo 25 sano oo xabsi ah oo noqon doona mid aanu ka baxsan doonin. xabsigaas oo noqon doona kii ugu horreeyay uu ka baxsan doono sanadkii 2013 kadib kolkii qoryo iyo qaraxyo la soo geliyay xabsiga oo isticmaalay kuna qarxiyay ilbaabadii xabsiga si yaroo fududna uga baxay ilbaabka kana baxsaday meeshii, taasoo kolkii la ogaaday lagu baraarugay keentay in ciidanka ay sameeyaan baadhitaano iyo dabagal ay rabaan inay ku soo qabtaan ninka baxsaday oo ay ugu dambeyn soo xidheen dhowr bilood oo ku jiray dhuumasho. waxaa dhigay kolka xabsigii adkaa ee aynu ka soo hadalnay ee ku yaalay koonfurta magaalada Paris ee ammaankiisu adkaa oo ahaa xabsiga ugu adag dalka Faransiiska ahna ku ka baxsan doono mar labaad, maadaama baxsigu yahay hibadiisa labaad ee u soo raacda tuuganimada ugana baxsan doono si cajiib ah oo la moodo filin Hollywood mar labaad. It was too late when prison guards realized what was happening. waa sanadkii 2018 waana isla xabsigii dhexe ee adkaa ee koonfurta magaalada Paris ee wadanka Faransiiska oo ku jiray maxbuus Ridwaan kadib kolkii la soo qabtay baxsigiisii qarax ee uu ka geystay xabsigii hore, isagoo kolkaa la moodayay inuu xasilay joojiyana afcaashiisii baxsi ay si joogto ah ciidan u ilaalin jireen ulana socon jireen dhaqaaqyadiisa, maadaama uu ahaa khabiir tababaran jir ahaan oo soo maray tababar ciidan. waxayse ciidanku aan ogeyn inuu si joogto ah u sameeyay xidhiidho iyo wicitaano iyo weliba booqashooyin fara badan in dambe, taasoo ku qorsheynayay baxsasho. tolom waxbuu ka wataa lama oga lamana fahmin. waxaase dhowr cisho ka hor la arkay drone ama kaamarada duusha oo duubaysa hareeraha xabsiga iyo dhismihiisa. shakigaasina ma yarayn, lamase ogeyn in Ridwaan wado qorshe ku bilowmay wicitaanadiisaas oo laba nin u xil saaray baxsashadiisa. labada nin oo arday iska dhigaya ayaana la kulmay nin duuliye diyaaradeed ahaa oo la odhan jiray Stefan oo ahaa 64 jir khabiir duuliye diyaaradeed ah. labada ninna waxay Stefan u sheegeen inay rabaan inay raacaan oo la duulaan maadaama ay rabeen inay kareystaan diyaaradiisa lana soco daawda. labada nin way isdhaleen oo waxay isku ahaayeen wiil iyo inankii, waxayna doorteen oo kareysteen nooc diyaaradeed oo gaar ah. sida la sheegay Stefan waxay siiyeen ijaar ama kiro 500 oo euro ah oo hordhaca. kolkii ay in muddo ah diyaaradu duulaysayna waxay u sheegeen labada nin inay rabaan inay xaajo gutaan oo uu diyaarada dejiyo si ay u soo kaajaan. kolkii dalabkooga uu aqbalayna ee diyaaradii ku dejiyay meel cidla ah ay labada nin iska dhigeen kuwa xaajo gudanaya, isagoo sugaya ayuunbayna hal mar ka qarsoomeen. ilbiriqsiyo kadib uunbayna soo laabteen iyagoo wato qoryo. kolkiibayna ku qabteen qorigii uguna hanjabeen Stefan inay dilayaan isaga iyo qoyskiisaba haddii
haddii aanu aqbalin waxa ay ka dalbadaan, waxayna u sheegeen in diyaaradda uu u kaxeeyo kolkaa meesha ay rabaan oo uu geeyo. haddaynu nimana dhanka xabsiga waxa maalinkaa booqanayay Ridwaan walaalkii oo aan wax kala socon baxsiga dhaci doona, wuxuuna ku sugnaa markaa Ridwaan iyo ninay walaala ahaayeen qolkaa dadka lagu booqdo, halka ninkii Stefan iyo labadii nin ee diyaaradda u aftuubnayd ay u sheegeen inay mar labaad dejiyaan si ay u soo raacaan laba nin, isagoo loo sheegay inuu kaco kolkay soo raaceen iyagoo qori dhabarka kaga haya una hanjabaya, taasoo ay ciladi ku timi markaa istaarmina weyday. cilad saar iyo eegis kadibna waxa uu ku guulaystay inuu kiciyo, waxayna toos u abbaareen meeshii ay rabeen inuu geeyo oo ahayd saldhigga uu ku xidhnaa ninkii Ridwaan. kolkii ay gaadheen xabsigiina waxa ay diyaaraddii dul heehaabiyeen xabsigii, halka Ridwaan iyo walaalkiina ay ku sheekaysanayeen qolkii booqashada. kolkiibayna ciidankii saldhiggu maqleen guux ay la yaabeen oo ay moodeen wax kale. kolkii ay hubsadeen waxa ay arkeen inuu yahay guuxa diyaarad helikobtar oo dul heehaabaysa saldhigga. kolkaas bayna ciidankii ilaalada ahaa wargeliyeen iyagoo hubkii diyaarsaday kolkaa, halkaasoo diyaaraddii ay raadinaysay meel ay ku degto maadaama shabaq ku xidhnaa dusha xabsiga diidaya inay diyaaradi ku duldegi karto gudaha xabsiga. waxayna raadinayeen bal meel daroosha oo ay ku degi karaan, waxayna ugu dambayn heleen dalool ay ka galeen kuna degeen oo ahaa qaybta booqashooyinka oo aan dadnayn. iyaga oo heehaabaya bayna diyaaraddii ku degtay, manay taaban dhulka oo waxay ahayd diyaarad awood u leh inay heehaabto iyada oo aan dhulka taaban. kolkii ay diyaaraddu degaysana waxaa arkay laba maxbuus oo qashin qubayay oo ilaala la socday oo arkay diyaaradda lana yaabay oo daawanayay. iyaga oo daawanaya bayna diyaaraddii ka soo degeen laba nin oo xidhan maaskiyo iyo shaayadaha aanay xabaddu karin, halka ninkii saddexaad isna uu qori ku hayay dooliyihii si aanu u baxsan. waxayna wateen qalabka lagu jaro biraha oo mid ka mida markiiba uu abbaaray ilbaab si uu ugu jaro, halka kii kale isna uu qarxiyey bambooyinka qiiqa keena oo keentay in gebi ahaanba meeshii uu qabsato uuro amaba qiiq. kolkii uu maqlay guuxa diyaaradda, ninkii Ridwaan waa diyaargaroobay, wuxuuna u sheegay walaalkii inuu baxsanayo. labadii ninna waxay gudaha u soo galeen xabsigii, waxa ayna jireen ilbaabo kala duwan. ciidankiina waxba kamay qaban karin ragga, waayo may hubaysnayn oo iskamay caalin karin raggaa wata AK-47ka. markaas bayna ciidankii qaar ka mida waceen hay-adihii duulimaadka, kuwo kalena waxay la xidhiidheen ciidamadii oo nasiib xumo qaar laga qabtay taleefanka laguna jeesjeesay, kuwo kalena aanu u dhicin. ciidanka keliya ee hubaysnaa ee ku sugnaa xabsigana waxay ahaayeen kuwa saarnaa taawarada ilaalada, iyaguna may arki karin diyaaradda oo waxa ka qariya qiiqa iyo dhismayaal xabsiga ah maadaama uu xabsigu weynaa. sidoo kale looma ogoleen ilaaladaa saaran taawaradu inay xabad ku ridaan diyaarad duulaysa amaba helikobtar. halkaasna labadii nin ilbaabadii kala duwanaa ku jabsadeen ilaa ay ka abbaareen qolkii booqashada ee uu ku jiray Ridwaan iyo walaalkii oo ahaa qolka 15aad. kolkii ay soo gaadheenna qolkaa waxay bilaabeen inay ku jiraan ilbaabkii mishiinkii ay wateen, sidii bayna ku fureen oo ku jareen. sidii buuna ku soo raacay Ridwaan raggii soona abbaaray dhankii diyaaradda. qolkiina waxa uu kaga yimi walaalkii oo la yaabay una qaadan waayey in walaalkii mar kale uu isku dayay inuu baxsado. kolkii dibadda u soo baxayna Ridwaan waxa uu salaamay labadii maxbuus ee bannaanka taagnaa, waxa uuna furay diyaaraddii iyadoo boqolaal maxbuus ka daawanayaan daaqadahooda. waxaana la mooday in meesha film lagu jilayo, sacab iyo mushxarad baana gudihii xabsiga isqabatay. halkii bayna ka horeeyeen diyaaraddii oo uu saaran yahay ninkii maxbuuska ahaa ee baxsaday ee Ridwaan. sidaana waxa uu uga baxsaday xabsigii ammaankiisu adkaa, mar kalena waxa uu noqday nin xora. mid ka mid ah maxaabiistii baana muuqaal ka duubay kolkii uu baxsanayay, taasoo keentay in warkii baxsigu faafo ayna qaadaadhigaan saxaafadda kala duwan ee daafaha dunida. warkii baxsigiisuna waxa uu noqday mid caan ah oo qabsaday dhammaan baraha bulshada. caanimadiisii horena waxa ugu darsamay caanimo kale oo ah inuu uga baxsaday xabsi adag si aan caadi ahayn. baxsashadii kadib iyo faafitaanka warka ah inuu baxsaday ninkaasi oo uu ka baxsaday xabsiga ammaankiisu aadka u adkaa, ugana baxsaday qaab cajiib ah, ciidankii waxay u dhaqaaqeen soo qabashada ninkaa dembiilaha ah si kasta oo ay awoodaan, suurtagalna u ah, isagoo noqday markaa ninka loogu raadiska badan yahay gudaha dalka Faransiiska xilliga, taasoo la helay 3 bilood kadib isaga oo isku qarinaya tuuladii uu ka soo jeeday. isla sanadkii 2018 bayna soo xidheen ciidankii, waxayna dhigeen ciidankii mar saddexaad xabsigii oo ciidan gaara loo xil saaray si aanu uga soo baxsan karin abid. waxaana la xukumay sanadkii 2022 5 sano kadib maalinkii la soo xidhay, waxaana lagu xukumay dilkii gabadha iyo dhicitaanadii uu geystay iyo weliba sidoo kale baxsashooyinkii xabsiga uu sameeyey. waxaana lagu xukumay oo maxkamaddu sheegtay
inuu yahay nin aan caadi ahayn, waxaana lagu xukumay in 39 sano oo cimrigiisa ka mid ah uu ku qaato xabsi isaga oo loo diiday inuu hawo arko, taasoo si joogto ah loo ilaalinayay loona baadhayay. waxaana intaa u dheeraa in qoyskiisii iyo reerkiisii ay ka soo gaadho meeshaasi ceeb iyo fadeexad, halka isagii ku cataaday marar fara badan in la xabaalmaroodiyey isaga oo nool. waxaana la sii dayn doonaa 2060 isaga oo noqon doona kolkaas 88 jir. waa haddii aanu baxsanba intaa amaba aanu ku dhex baktin godka cidlada ah. haddaad ka heshay taxanahana fadlan like saar, lana wadaag asxaabtaada, kana mid noqo xerta xogdoon oo la soco xalqad cusub maalin kasta oo Jimcaad. waxayna ku saafmeeri doonaa xalqadeenan wari laga hayo tuuga Ridwaan Faa'iid, kol wax laga weydiiyey nolosha gaangistarnimada iyo taxabsigaba, oo uu ku jawaabay nolosha gaangistarnimadu waa nolol liidata oo xun, waayo qof kasta noloshiisa waa adkaynaysaa waana dhibaysaa. kolkaad xabsiga gashana sidoo kale waxaad maraysaa ciqaab wada jirta, tusaale ahaan qoyskaaga, xaaskaaga, carruurtaada, walaalka, walaasha iyo weliba waalidka, iyana waxaa laga jarayaa ciqaabun si ay noqotoba sidoo kale. La vie de bandit, c'est que de la vie de merde. Vous savez, vous faites souffrir tout le monde. Quand vous allez en prison, c'est une sanction carrément qui est collective parce que votre famille, votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, tout le monde paye.